waan ku salaamayaa daawada meel walba aad dunida ka joogtid. Halkani waa Elias Online. Barnaamijkan aynu idin soo gudbin doono waxa uu ku saabsan yahay xiisadaha kala dhaxeeya amba u dhaxeeya dawladaha Masar iyo Ethiopia. Sida aynu ognahay, dawladda Ethiopia ayaa diyaarinaysa biyo xireen aad u ballaaran oo ay ugu talagashay inay koronto ka dhaliso, waa sida ay hadalka u dhigtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Masar, Sami Shukri, ninka la yiraahdo oo dhowr maalmood ka hor ka hadlay arintan, ayaa sheegay in wadahadaladii biyo xireenka aanan wax horumar ah laga sameynin muddo 4 sano laga joogo imika. Wasiir Shukri oo shir jiraa'id ay isla qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya, habeeneed lagu magacaabo Monica Juma, wuxuu sheegay in Masar ay aqoonsanayso biyo xireenka ay Ethiopia ka dhisayso wabiga, waa haddii ay taasi aysan saameyn doonin biyaha saami qaybsiga ay ka helaan dadyoga reer Masar, waa sida uu hadalka u dhigay. Biyo xireenkan laga dhisayo gudaha dalka Ethiopia ayaa lagu wadaa in laga dhaliyo koronto dhan 6,000 oo megawatts ah oo ah cabirka korontada, waxaana qorshuhu dawladda Ethiopia ka soo horjeestay dalka Masar oo sheegay in ay taasi biyo yari ku keeni karayso dadkeeda. Waxaa la saadaalinayaa in dagaalka xiga ee adduunka uu ku saleysnaan doono biyaha. Xiisadaha ugu badan ee arintani hadda waxa ay ka taagan yihiin ama ay ka taagan tahay daafaha wabiga Niilka. sidoo kaleeto khilaafkan Masar iyo Ethiopia ayaa muddo soo jiitamayay, ayadoo dawladda Suudaan ay kamid ahayd barnaamijkan khilaafka u dhaxeeya dalalka Masar iyo Ethiopia. Khilaafkan Masar iyo Ethiopia muddo soo jiitamayay, Suudaan ayaa sidoo kaleeto qayb ka ah muranka, taas oo muujinaysa in wadan gaar ah uusan marnaba maamuli karin biyaha wabiga Niilka. sidoo kaleeto biyo xireenka Ethiopia wuxuu noqon doonaa midka laga dhaliyo korontada ugu badan 85% biyaha wabiga Niilka ay ka yimaadaan buraha wadankaasi Ethiopia. Walaaca Masar wuxuu yahay in Ethiopia ay yeelato awood ay ku yareynayso biyaha wabiga oo dalal badan ay ku tiirsan yihiin kadib marka la dhameystiro mashruuc biyo xireenka ee la filayo in 2023 uu soo gabagaboobo. sidoo kaleeto dawladda wadanka Suudaan iyo Masar ayaa ayagana u dhaxeeya khilaaf. haddii dawladda Ethiopia ay biyo xireenkan ay u suura gasho in ay soo gabagabayso 2023, ay dawladda Masar ayaa walaac ka qabta in uu sii kordho isticmaalka biyaha Niilka. dawladda wadanka Suudaan ay aad u isticmaali doonto, taasina ay u keeni karayso dawladda Masar in biyo la'aan ay soo wajahdo. dawladda Masar ayaa sheegtay in qatar walba oo la xiriira biyaha loo aqoonsanayo halis soo wajahday madax banaanida dhuleed ee dalkaasi, sida ay horey hadalka ugu dhigtay. sidoo kale dalalka Suudaan iyo Masar ayaa ayagana u dhaxeeya khilaaf aad u ballaaran, taasi oo aan weliba soo shaabixin. dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in dawladda Masar aysan jirin wax kale oo u banaan oo aan ka ahayn in ay qaado talaabo military oo ay xaaladda ugu sii dari doonto ama ay ugu sii dari karto, waana taas sababta ay labada dal ay u doorbideen in arintani lagu dhameeyo qaab diblomaasi ah. ma jirto awood maanta kuma quunin karayso, ayuu yiri madaxweynihii geeriyooday ee wadankaasi Masar Mohamed Morsi markii la doortay kadib oo uu shir jiraa'id oo arintan ku saabsan biyo xireenka Ethiopia ay sameynayso oo hore u sheegay ayaa waxa uu yiri
uma dulqaadan karaan shacabka reer Masar in biyahoodii ay xaqa u lahaayeen in ay dowlad iska leexsato ay say doonto ka yeelato sida uu hadalka u dhigay. taasi ayaa walaac fara badan ku abuurtay dowladaha reer galbeedka ee Ethiopia taageerada kala duwan siiya sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Mareykanka. dowladda Masar xilligan la joogo ma jirto meel kale ay arintan horgeysay, xitaa aanan weli midowga Afrika arintan si toos u soo faragelin khilaafka u dhaxeeya dowladaha Masar iyo Ethiopia. Masar ayaa moodaa waayadii ugu dambeeyay in ay hub urursi ku jirtay ayadoo military ahaan ay ka awood badan tahay marka laga hadlayo dhanka cirka. dowladda Ethiopia ay kaga awood badan tahay, haddana haddii aanan loo helin wax wada hadal ah amba arin diblomaasi inay fooda isdari doonaan dowladahan isku haya biyo xireenka webiga Niilka ay Ethiopia maanta ayada mashruuc malaayiin dollar ah ku bixisay ayna ku qaadatay shirkad Chinese ah ama wadanka China. dad dowladda ku dhow ay wax ka og yihiin dhismaha biyo xireenkan ay dowladda Ethiopia sii wado horumarintiisa. midowga Afrika ayaan weli soo hadal qaadan si toos ah in arinkani wax laga yeeli karayo maadaama Ethiopia ay ku taalo xaruntii midowga Afrika. madaxweyne Sisiga ee wadankaasi Masarna uu asaga qodiisa uu ahaa bilihii ugu dambeeyay ama sanadka aynu ku jirnay xilligan uu ahaa gudoomiyihii ururka midowga Afrika ee meerta ahaan sanad walbo dal loo dhiibo. midowga Afrika ayaa la ogaan karin waxa uu ka yeeli doono arinkani haddii ay sii socdaan khilaafka u dhaxeeya dowladaha Masar. haddii ay military gacan ka hadal timaadana waxa ay sheekadu ku bilaaban kartaa sida ay dadku saadaalinayaan in ay diyaarada isu adeegsadaan labada wadan maadaama aan Ethiopia lahayn bad ay ciidanka Masar ku imaan karaan haddii weerar uu noqdo. laakiin wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda wadanka Suudaan ay aad u doorbidayso in aan wax dagaal ah una arinkan ku yeelan doonin labada dal maadaama dowladda Suudaan aynan wax dana ugu jirin dagaal ka qarxa labada dal Masar iyo Ethiopia. dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in xitaa haddii dowladda Masar ay duqeyso biyo xireenkan ay u isticmaasho bambaanooyin in ay biyaha waxyaabo badan geysan doonaan. barnaamijka halkan ayuu inoogu eg yahay. tan iyo ismaqal dambe xiisle sida iyo nabad.